kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo shaaciyay arrin la yaab leh oo ay ku arkeen deegaanka Ceel Hareeri kadib dagaalkii halkaasi ka dhacay ee lagu jabiyay xubnaha kooxda Al-Shabaab oo lagu soo waramayo in masaajidyo ay u bedeleen goobo ganacsi oo dukaamo iyo guryo ay ka samaysteen xilli looga adkaaday dagaalkii ciidanka xoogga dalka ay kula galeen Shabeellaha Dhexe iyo madaxweyne Cali Guudlaawe oo ballan qaaday in adeegyada dawladda ay heli doonaan shacabka ku nool deegaanka Masaajid Cali Guduud kuwa halkaasi ka barakacayna ugu baaqay in ay dib ugu soo laabtaan halkaasi iyadoo uu xaqiijiyay inuu sii socon doono dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa Somaliland oo markii ugu horeysay beenisay eedayn kaga timid Puntland oo ah inay magangeliyo siiso xubnaha kooxaha argagixisada sida Al-Shabaab qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownaa daawadayaal madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen oo booqasho ku tagay deegaanka Masaajid Cali Guduud ayaa ka warbixiyay xaaladda nololeed ee deegaankaasi kadib markii laga saaray kooxda Al-Shabaab Cali Guudlaawe ayaa shaaciyay in Al-Shabaab dhibaato badan ay u geysteen dadka shacabka ee ku dhaqan deegaankaasi iyo kuwa socotada ee halkaasi mari jiray madaxweynaha Hirshabeelle oo kormeeray deegaanka Masaajid Cali Guduud ayaa sheegay inay soo arkeen dhibaatooyin kala duwan waxaana uu tilmaamay in xitaa kooxda masaajidkii halkaasi ku yaalay ay u bedeleen dukaamo ay ku ganacsadaan iyo guryo ay seexdaan waxa uu ku eedeeyay kooxda Al-Shabaab inay ka been sheegayaan diinta Islaamka isla markaasina ay yihiin kooxo manaxayaal ah oo dhibaato ku hayo ummadda Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay Cali Guudlaawe ayaa waxa uu sheegay in kooxda Al-Shabaab la xaqiijin doono in guud ahaan waddanka muddo kooban laga ciribtiro waxa uu ugu baaqay dadka ka barakacay deegaanadaasi inay dib ugu soo laabtaan iyadoo uu ballan qaaday in adeegyada dawladda dhawaan ay heli doonaan Allah ayaan ugu mahadcelinaynaa oo noo suuro geliyay inaan maanta ku sugannahay degmada Cali Guduud oo muddo dheer ay ka talinayeen ama ku amar taagleynayeen ummadda ku nooleeday nimanka khawaarijta ahay Al-Shabaab ilaahay ayaan ugu mahadcelinaynaa marka koobaad marka labaadna cid kasta ee gacan ka geysatay oo ay ugu horeeyaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waa ugu mahadcelinaynaa dadaalka iyo wanaagaad muujiseen ilaahay idinka abaalmariyo ayaan leeyahay runtii nimanka nabadiidka khawaarijta dalka Soomaaliya dhibaato badan ay ka geysteen haday tahay cibaadadii iyo haday tahay ummadii nolosheedii meel waliba hor istaageen waxaad arkayseen dhibaatada ay u geysteen dadka shacabka ay ku dhameynayaan qaraxyada waxaad arkayseen raadadka ka muuqdo oo xumaanta oo deegaankan ay ka geysteen indhihiina aad ku arkayseen gaadiidka meeshan ku guban gaadiid dad masaakiin ay lahaayeen ay dab qabadsiiyeen waxaad arkayseen masaajid loogu talagalay in lagu cibaadaystay u bedeleen dukaaman iyo jibiyeen dukaaman ka dhigeen waa bayt ilaahay oo loogu talagalay in lagu cibaadaysto waxay ku tusaysaa inayna diin wadin ay yihiin koox isu timiday oo gaangisa oo ummadan inay nolosha ku cadaabaan go'aansaday inay yihiin cadayn u tahay hadii masaajidkii dukaan ay u bedeleen ay ku ganacsanayeen ayagu haday gaadiidkii dadka masaakiin ay lahaayeen ay ku shaqaysaayeen ay dab qabadsiiyeen haday gabdhihii masaafurka ahay wadada ku socday in dejiyaan ay ku farxumeynayaan saldhig in ku leexiyaan maxay ku tusay meeshaas wax diin la yiraahdo iyo wax dadnimo damiirka dadka dhintay waayay wax sameey karana ma jiraan dhaqanka ay sameynayeen nimankaanu ilaahay ayaa mahadaas iska leh oo maanta suuro geliyay in dhibaatadii ay muddada dheer ku haayeen laga dul qaado waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka deegaankan ku nool nimankaanu noloshii idin kala hereen horumarka haday waxbarasho tahay la hereen haday caafimaad tahay la hereen xoolihiina waxay gaareen inay bil waliba saka aan jirin ay idin ka qaadaan inay waxay gaareen dadka qof canshuur ugu qoraan ay yiraahdeen qof heblo intaas cunuga u joogtaa waa inay intaas xoolo ay keenaan waa inay waxay gaareen dadka masaakiinta ee aan xoolahooda saka ka goyn haday lama neef wataan neef ku fiican ama saddex wataan neef ku fiican inay ka qaataan ay gaareen laba loor badar qoftii wato inay loor ka qaataan ay gaareen inay dadkii bil kasta
ay maaragtay ka qaadaan dhaqaalo ay ummadan ku dhibaatayaan inay gaareen waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka deegaankan ku nool ilmihiinni ayay maaragtay qarax ku xireen iyagoo quraanka idin baray ama iskoolaadka idin dhagaay ka wadeen ay yiraahdeen hees qarxiyaano dagaal in yageenay ku baabeen asa qaarkood iyagoo ay maaragtay nolol iyo geeri midna aan lagu haynin. dhinaca kale waxaa arrin mucjiso ah lagu soo warramayaa in lagu arkay deegaanka Ceel Hareeri oo 2 maalmood ka hor ay ku dagaalameen ciidanka xoogga dalka iyo waliba sidoo kale dagaalyahanada Al-Shabaab. afayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Generaal Cabdullaahi Cali Caanood oo shir jiraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa war cusub ka soo saaray howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka soconaya Shabeellaha Dhexe. Caanood ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka ee la wareegay gacan ku haynta deegaanka Ceel Hareeri oo u dhow degmada Aadan Yabaal ay la kulmeen arrin la yaab leh kadib markii ay gudaha u galeen difaacyadii ay ku sugnaayeen Al-Shabaab. afayeenka ayaa Xuseen ciidamada ay heleen meydadka dhalinyaro koox la isugu xiray kadibna la toogtay halka qaarkoodna bam lagu qarxiyay sida uu hadalka u dhigay. waxa uu sheegay in dadkaasi dhalinyarada ah ay ahaayeen kuwo xoolo dhaqato ah oo ay soo qabqabteen kooxda Al-Shabaab ayna doonayeen inay dagaalka ka qayb qaataan. wuxuu tilmaamay in arrintaasi ay caddaynayso in kooxda Al-Shabaab ay soo qabsadeen dhalinyaradaasi isla markaasina ay raaf ahaan dagaalka ku soo geliyeen. waxaa kale oo intaasi ku daray in arrintaasi ay ka dhacday Ceel Hareeri ay tilmaamayso in 100 qof ee dhintay aysan wada ahayn kuwa ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee ay ku jiraan dhalinyaro xoog lagu soo qabtay. dagaalkii iyo howlgalkii Ceel Hareeri ka dhacay cadowga lagu naafeeyay markii uu istaagay meelihii cadowga difaaca kaga jiray baa ciidamadu galeen bal inay dhaawac iyo ka helaan wixii dhimashaana aruuriyaan. waxay heleen arrin la yaab leh waan hore noo soo marin. dhalinyarada Maleesiyada Al-Shabaab oo 10 katiinad ugu xiran tahay 10 ninba katiinad baa ku xiran xabaduna ku wada taalo qaarna bam bay ku dhinteen qaarna ciidanka toogtay 10 isku xiran 5 isku xiran ilaa hadda intaas waa la isoo sheegay. taas maxay daliil u tahay dadka inay soo raafeen oo soo khasbeen oo laga cararayo oo qof walba uu raba inuu ka cararo oo ay khasbayaan oo leeyahay khasabna u gal ama annaga ku dilayna ama hadii katiinad la xabadu markay bilaabato ninna khiyaar uma laha nin uu gaar u ilaaliyo waa la fakan karaa. waa mid hore ugu sheegnay dhalinyarada ka faa'iideysta marka dagaalku bilowmo katiinada ku xirxireen. arrintaasi ii sheeg waxay ka dhacday Ceel Hareeri. arrintaasuna waxay noo sheegaysaa boqolka qof oo dhintay inaysan wada ahayn dadkii ayaga u wada shaqaynayay ee ay ku jiraan dhalinyaro xoolo dhaqata iyo beeraley iska ah oo la soo raafay oo dagaalka lagu soo khasbay. hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dawladda Soomaaliya ay hore u shaacisay in dagaalkii ka dhacay Ceel Hareeri lagu dilay ilaa iyo 200 qof oo ka tirsanaa kooxdaasi Al-Shabaab. ugu dambeyntiina daawadayaal xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay si adag uga jawaabtay eedeymo lagula xiriiriyay kooxda Al-Shabaab iyo waliba inay magangeliyo siiso xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee dhibaatooyinka ka geysanayo deegaanada Soomaaliya iyadoo eedeyntaasi ay u jeedisay Somaliland maamulka Puntland. taliyaha guud ee ciidamada Somaliland Generaal Nuux Ismaaciil Taani oo warbaahinta la hadlay maanta ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in Somaliland ay magangeliso kooxaha argagixisada. Generaal Nuux Taani ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in liiskii ugu dambeeyay ee shakhsiyaadkii Mareykanka uu ku tilmaamay argagixisada dhammaantood ay ka soo jeedaan Puntland. hadalka taliyaha ayaa imanaya kadib markii dhawaan taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland uu ku eedeeyay Somaliland inay gacan siiso argagixisada. ma ahan markii ugu horeysay ee maamulka Puntland uu eedeyn noocan ah u jeediyo Somaliland iyadoo hore marar kala duwan ugu eedeysay inay xiriir iyo waliba wada shaqayn la leedahay kooxaha argagixisada taasi oo uu beeniyay maamulka Somaliland. guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. tan intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.